halkan waxaa ka socda aroos balse ma aha aroosyadii aynu naqinay muqa urubta codka malabkan dhaxda ogaanee tagada iscelin horta canabkii cabariyahaniyo xarfiga uduga muqa urubta codka malabkan dhaxda ogaanee tagada iscelin horta canabkii cabariyahaniyo xarfiga uduga حسن عبد علي وويل سوماليد وحاونا ديغانيا حلفدا أروسكيسا بلس حلفدا مانتا معها حلفدي سوماليد صوت أفريكا اي هورو ديغان جيرين وحاونا شيغي إن حلفداني مانتا او ديغي حاسكيسا اي تاهي حلفد او مدكو تاميي وحاونا نو شيغي إن درانكيسو آد او فرحسن يهي مادام او رمي رياض حاسكيسا I like this dress. qaarkood way la yaaban yihiin arooskan cajiibka ee hore aan uga dhicin dalkan South Africa ama Soomaali iyo South African ay isku guursadaan halkan Xasan waxa uu noo sheegay inuu ku faraxsan yahay guurka gabadhani oo lagu magacaabo imika Faaduma waxa uu sheegay in gabadhani markii hore ay haysatay diinta Kristanka balse ay qaadatay diinta Muslimka markii ay isguursadeen daawadayaal halkan aan iminka ku suganahay waa goobtii arooska uu ka dhacay waxayna ka dhacday qaybtan iga dambaysa waana arin uub ku ah Soomaalida South Africa sheekada ayaa waxa xiiso u yeelaya markii uu guursaday ama uu mehersaday Xasan gabadhani waxa ay ahayd 2010 waxayna u haysaa 2 caruur ah oo gabadhiisa curadda ay jirto 9 sano dadka qaar ayaa waxay qabaan in guurkani uu yahay guur qaldan magacayga waa Nuur Yuusuf Cali ku magac dheer abwaan Nuur Gurey run ahaantii waxaan rabaa inaan iraahdo gabadha ajnabiga ugu fiican waxa ka fiican gabadha Soomaaliyeed tan ugu liidan waan guursaday qof ajnabi baan guursaday 2 wiil ba ii dhashay waxaan ula jeedaa sokorta markaad hanbato way macaan tahay laakiin macaanka aad hanbato ku eg yaasaga laakiin timirta marka cunto marba mar ka sii dambeeso ayuu sii macaya waxaan ka wadaa dhaqanka ajnabiga ah ee guursato wahamta hore laakiin raasimaalkiisa dambe ama mustaqbalkiisa dambe awlaadaada taada iyo dhaqan bulsho dhaqaale wax walbaba waxa weeyaan waxaad noqonaysaa gabaabs bismillaahir rahmaanir rahiim saamiya daahir salaam baleedaha marka waxaan ka hadlayaa guurka qofka ajnabiga ah guurka qofka wadankaaga ah markasta waxa fiican gabadha wadankaaga inaad guursatid laakiin qofka dooqiisa waa in la ixtiraamo qof walba dooq buu leeyahay وطاي داودة لوحة هلكن لتاجنا حسن عبد علي أو نيكا هلكن كبر سدي أراسك أها وحبور سدي قبر صوت أفريقيا بس أصل كده كسر جيد دلك ملاوي حسن وحد نلو ذاك تدرين كاج فرحة هذا ما تواسي دورت الحمد لله آد أنا فرح صناعي وايو gabadha xaaskeyga waxay jecleed mar walba inaan u sameeyo aroos maadaama today iyadana si fiican u faraxsantaan sidoo kale waana faraxsanahay okay Xasan arinta laakiin arin hore Soomaalida South Africa ay u sameeyeen ma sax marka maxaa kugu dhaliyay ama maxaa kugu abuuray in arintan sameeyso oo ku dhiirato waliba iyadoo rag badan xaasas South African ay qabaan balse ay ku dhiiran laayihiin qof islaam ma ahayn islaamnimada rabtay kadib marka islaamka aan baray waxay dhahdeen walaal aniga waxaan rabaa inaan nin guursado maadaama ay weydiistay inay guur rabto waan isnikaxsanay waan isguursanay kadib in badan isla joognay wiil iyo gabar ay haysaa iyadoo intaas aan isla joognay haddana waxaan ugu soo baraarujiyay inaan isnikaxsan inaan aroos dhigano mar kale waalidkeeda iyo aniga oo iyada xaggeeda dareen zaid ka imaaday oo jeclaatay inay samaysato aroos oo mar walba qalbigeeda ku jiray goormaan aroos la dhigi doonaa walahi dadka badanaa way isweydiiyaan maxaad u guursan weysay gabar Soomaali ah maadaama aad Soomaali ah tahay taasi waa arrin muhiim ah balse ujeedada ma ahan labada qof oo isfahmay oo guur xalaal isku qabo in qalbigooda la kala dilo
فذوليو فاقدان مدايي انتي كولا فقاموي فرهنا لسوقلي وحن فايدة وجرين dad badan oo Soomaaliya ayaa waxay u arkaan South Africaanka inay yihiin dad cunsuriyiin ah oo aan waxba la wadaagi karin haddaba Xasan ayaa waxa weydiiyay qaabkii ay u soo dhaweeyeen markii uu gabadha ka doontay marka hore dadkan gabadha xaaskeeda ka soo jeedo si wanaagsan ay ii qaabileen si wanaagsan ay ii soo dhaweeyeen waan ugu farxeen waayo dhaqankii iyo Afrika ka dhaxeeyay oo laboolii la dhiibaayay waa la siiyay arooskani hadda waa loo dhigay sidaas zaid ugu faraxsan yihiin oo hadda afkooda ka muujinayeen maanta inay dhaheen Tanzania meesha ku dhamaan rabaa waayo maadaama aan isdhaxgalowno oo dhaxgalkii iyo gabadhayna nin Soomaali oo guursaday Tanzania meesha ka bixi doona saas hada qabsigooda ahaa ma aanan helin wax cilad ama dhibaato aan kala kulmay si wanaagsan ayay isu dhaweeyeen marka ugu horeysay ilaa ay hadda maanta ugu dambayso waa inuu ku faraxsan yihiin Abdixakiin Ibraahin magaalada Bulugwani dalkani Koonfur Afrika